iyadu sahal bay hayne waxa uu ku halaagsamaya naaraha marka xiriirka ilaahay iyo adoomaha ka dhaxeeya ay halkan ilaahay ku tilmaamay fa imma ya'tiyannakum minni hudan hadduu hanuuniga ka yimaado hanuunku waa kee ummadu had iyo jeer hanuun way sheegtaan iyo horumar hanuun waa ka ilaahay hanuunku waa waxyiga samaawiga ee ilaahay usoo dhiiba rususha hanuunkaasi marka uu yimaado dadku way qaybsami doonaane ka raaca ee aqbala ee waxyiga samaawiga iyo kutubta ilaahay iyo diinta ilaahay aqbala iyo sharciga ilaahay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun arrinkiisu ah cabsi iyo muruga midnama haysto sideedabana cabsida iyo murugadu waa waxaa in fara badan halkan inagu haya marka cabsidu dee wuxuu qofku ka cabsanayaa wixii soo socda murugadana wuxuu ka murugaysan wixii tegey ifkan waaba labada dadka wareeriyey ka u dhaqaalo badan bay labadaasi wareeriyeen oo ka u xoog weyn ayay labadaasi wareeriyeen oo ka u caafimaad badan bay wareeriyeen oo ka u cilmi badan bay wareeriyeen dadka had iyo jeer la kamanaya ama inay nicmo dheeraada haystaan ima alkhawf wa ima alxusn meesha waxay nagu hayaan labadaasu qofkii oo cunaya oo cabaya caafimaad qabo imkaaniyaad badan leh ayay labadan igu darayin wuxuu ka warwarayaa qofkii wax munaasib ahaa oo aanu samaynin fadeexad soo gaadhay buu ka murugaysan yahay ficil uu sameeyey ama lagu sameeyey buu ka murugaysan yahay murugadaasi waa ku badantay dad ama khawf daxag u aamin noqon doonaa qofka kii godab haya hadalkeeda daaya kii aan godab haynin ayaa ama ilaahay uu ka cabsanaya ama aakhiruu ka cabsanaya ama ummad kale u ka cabsanaya alkhawf fiiha kaiir adduunyadan aynu ku noolnahay waa waxa dadka wadnaha jare ciro iyo bidaar waxa taa ka soo saaray aad arkaysaa waa ima alkhawfu wa ima alxusn ilaa la tilmaamay cudurrada badankooda hadday dhiikar tahay iyo hadday macaan tahay iyo hadday wadna istaag tahay iyo xidida ku qarxaqo mushkiladaasoo dhami waa ima alkhawfu waalxusn laakiin halkaa marka la tago labadaaba waa laga naqsanaya waa raaxa daa'ima ilaahay ehelkeeda haynaga yeela laakiin taa maxaa lagu helaya qaarka lagu qaadanaya muxuu yahay waa diinta ilaahay dadku hadday doonayaan nabadgeliyo hadday doonayaan horumar dhaqaale hadday doonayaan adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan faman tabica hudaaya ayaa ilaahay u leeyahy halka laga raadiye mastarkeedu waa halkaa maaha ummadaha galbeedkao laydhaa siday u ilbaxeen ay beeraha u beereen ay laydhka u siraadeen warshadaha ay u sameeyeen bal inana aan daba guclayno bal distoorkoodaa wanaagsan bal dimuqraadiyadooda digdigtaasoo dhami dumitaan unbaa ka dambeeya laakiin faman tabica hudaayadaa ilahay uli noloshuna sideedaba dhaqaalo badan iyo imkaaniyad iyo dhaldhalaal adduunye maahe noloshu waa iimaanka noloshu waa diinta iyo iimaanka ummadaan diin iyo iimaan lahayn waxalla waxay hayaan oo dham waa barkumataan waman carada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiyaan u ballan qaaday baa ilahay ui qofka diinta diida wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinka qiyaamaha isagoo dan ah oo hangabsanaya ayuu isa soo taagaya jaafaajiriq buu bilaabaya markaasuu leey qaala rab nicmada aynu haysano islaamka kowka ah qofku hadduu diin iyo iimaan leeya iyo islaamnimo iyo camal san iyo cibaado wanaagsan oo wax kasta uu waayo waxba u noqon maayo balaayo kastoo soo kaba gashataa waxba yeeli mayso qofkaasi hadduu diin leeyahay waayo halkii lagu waaraya uu ku nasanayay buu tegi doonaa musiibada adduunyadana wuu iska ilaaway awfuu bicahdi uufi bicahdi waxaynu ka fahmaynaa ilaahay waxa laga doonayo waxa laga helaa wuxuu inaga doonayo markuu inaga helo saas in tansurullaha yansurkum marka had iyo jeer wuxuu ballan addoomaha kaga qaaday qur-aanku uu inagula hadlayo rasuulku inagula hadlay waxaa sameeya waxaa iska daaya kaa la oofiya ilaahay wixiisii baa la helay marka haddii muslimkii oo jabay la arko muslimkii oo xaqiran muslimkii oo laga xoog badan yahay muslimkii oo faqiira intanoo aayadood iyo intanoo diinihina ay sheegayaan waxaasoo khayra inay helayaan oo ay la-yihiin maanta macnaheeda ha u fahmin inuu ilaahay subxaana watacaala waxaan jirin sheegay laakiin shardigan unbaa la waayay haddii shardiga la waayona mashruudkaa la waayaa iminka waxaan ku idhi haddaad halkaa albaabkaa ka baxdo adduunka intaa leeg baad albaabka kugu horeeya ka helaysa haddaad kaba bixi weyda miyaad soo helaysa ma soo helaysa waayo shardi baa ku xidhan shardiga haddii la helunbaa mashruudkana la helaa ilaahay baa wuxuu leeyahay wa awfuu bicahdii uufi bicahdi marka ummadan aad arkaysa hangabsanaysa ee indhaha beeshay
الدنيا آخرة ضعيف كان نغدان شرط قاسا لقواي وحى كراء لها وتلمام ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الدنيا يرها كل بسنية آياتها إيغا آياتكم مر ملحظة إلا هدلان مر علماء إلا هدليان مر رقا إلا هدليان مر دمرك إلا هدليان بالشدة قيبه هذا كلا دوان قرآن قودنا ولها الله مرارك قار كنا قلبا سيقار ولها الله وسدا عقفتا للك الصفين يسا أما حال يسا أما وحتوسين يسا كلبا ماشي قلوعا صوب حباي دات شيريس marka qof waliba iyadoo si guudna loola hadlay si gaar marka loola hadlayna waa inuu calaamad sadaa culimadii yahuudda aayadda ku soo degtay culimada islaamkuna waa inay iska ilaaliyaan khatarta looga digay inay ku dhacaan diinta ilaahay in adduunyo la dhaafsado oo mabdii xaq ahaa ee lagu noolaayo lagu dhiman lahaa maslaxad la dhaafsado taasi baa ilaahay uga digay reer banu israa'iil ficlan waanay sameeyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu qofka cilmi barta cilmigaasoo ah wixii lagu doonayo ilaahay wajigiisa si uu adduunyo uga helo lam yurix raa'ixata aljannati yowma alqiyaama qiyaamada jannada urteeda ma helo macnaheedu maba gala janno macnaa asbaxa muxtarifan bidiini qofkana wuxuu noqday qof diintiisii ku shaqaysanaya oo maalqabeen iyo madax iyo raciyad iyo mid kastaba ha kaga helee waxa uu diintiisa laan uga dhigtay qaxweeye inuu ku shaaciyo marka ilaahay waxa uu leeyahay anna jannada ka qufulaya ilaahay waan jannada laynaga xidhi sidaa darteed xadiiska iyagoo eegaya iyo aayadan culimadu waxay ka murmaan diinta ilaahay marka dadka la barayo sida quraanka iyo xadiidka oo kale mushqaayad ma laga qaadan karaa lawaatan leeyahay qaxwaha qaadanine inta leeyahay lacag yar dhaafsanine wax ma laga qaadan karaa barida quraanka la barayo tafsiirkiisa dhigidiisa xadiidka la barayo kutubta ها iyo mayaba waa yiraahdeen laakiin qowlka dhaxdhaxaadka ah waa qowlka u badan qofkan diinta uu barayo bilaasha ku baro haduu helayo master kala masaarifta uga soo baxdo meel kala masaarifta uga soo baxdo haduu helayo waa cibaadadiisa bilaasha u haro hadii aanu meel kala haysanin meeshii wax ka soo bari lahaa ka soo saari lahaana diintan iyo quraankan uu dadka barayo uu kaga mashquulayo hadduu shaqo tagana diintiina dhaafayso waxba lagu siinayaa markaa waxay u soo daleeshadeen xadiidkii ka warramayay quraanka isku daweyntiisa in wax laga qaadan karo uu nabigu inna xaqqa ma akhadtum calayhi ajran kitaabullah bukhari baa warinaya can abi saciid al-khudri waxa mushqaad ka qaadataan waxa uu fiican oo u wanaagsan ba kitaabka ilaahay xadiidkaasi markaa hadii lagu daweynayo hadii la barayo labadaba waayo qofkii inaga taynoo daran waxa weeye dadku inay diin la'aan ku dhacaan dadku inay jahli kaga sugnaadaan diintooda taasa mushkilada adduunyada laga qaatay mushkilada ka badani waxa weeye dadku inay garan waayaan quraankoodii iyo xadiidkoodii iyo waxyigoodii si kastoo lagu dhiiri gelinayo oo mubaaxaba la maraya waaya alla waxa uu wala talbisu al-haqq bil-baat wa talbisuha kullaqina amma ha ku dhaxdarina al-haqq بالباطل حق يا باطل كايس كل احترنا وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق فلماذا حقها قاليننا وأنتم تعلمون لدينكو قرمية وأقيموا الصلاة صلاة أوغبا إلى هول وآتوا الزكاة سكذا نقول أبحية واركعوا مع الراكعين كو الركوعية لا الركوع ولا تكذبا إلى هول أتأمرون مياه فريسان علماء هداتهين الناس ضدكي بالبر سماها يوناك مياه فريسان وتنسون أنفسكم نفيهن نواك إلاوي وناك ما فريسان وأنتم تتلون الكتاب إذن كوليبا كتاب كينا أخرية أفلا تعقلون ميدان وحكرر أهين دائرهاوي وإذا وحبا فهمين واستعينوا كاشرة وقرب صدى بالصبر والصلاة صبر كأي الصلاة لبدا وكاشدة الدنيا دوي بلايو بدنتها وإنها صلاة دي لكبيرة أي لثقيلة متكعل سوي أو كوين بني آدم كي إلا على الخاشعين ددك إلهي أخشع سنة قلب قود الدبع سنة ونولي هاي مويان الذين كوا خشع سنة يظنون يقينسا وكقنعي أنهم إيجو ملاقو ربهم إلى إله هذا الله كل مدونا
inay ilaahay la kulmayaan kuwa ku qanacsan dhannigaasi waa qanacad iyo yaqiine kuwaasay salaada u fududahay wa annahum iyagu ilayhi raajicuun inay ilaahay u noqon doonaan kuwa yaqiinsan kuwaasay cibaadadani u fududahay aakhira ninka xusuusta ayaan ilaahay cibaadadiisa fudaydsanay arrimaha waxaad arkaysaa reer banu israa'iil baa khitaabku culimadoodii uu ku socdaa iyo caamada ummadii marka wixii iyaga la faray innagana waa layna faray waayo waa dhismo ummadeed wixiigu wuxuu ka hadlaya usuusha ay towraadi faraysay buu qur-aankeennuna faraya waa laba iswaafaqsan weeye oo isu rumaynaya ilaahay wuxuu ihi xaqa iyo baatilka ha isku darina idinkoo xaqii garanaya xaq iyo baatilka ha isku darina waa mid xaqa ha qarinina idinkoo garanaya marka labada arrimoodba waa manhi oo nafyiga u yaala halka hore nafyiga dambena u yaala walaa talbisu alxaqa bilbaatil laaba halkaa ku jirta ka kalena wuu ku cadfan yahay ficilka kale waalmactuufu cala almanhiyi manhiyu mid la diiday waxa lagu xidhaana isna waa la diiday marka macnaheedu waxa weye walaa talbisu alxaqa bilbaatil walaa taktumu alxaqa saasay wada socdaa xaq iyo baatilka isku dhex darina oo wax aan xaq ahayn xaqa ka dhigina mar labaad xaqa ha qarinina idinkoo garanaya labada jeerba adoo garanaya xaq iyo baatil inay kaliin ha isku dhex darin adigoo garanaya xaqan inuu caddayn u baahan yahay ha qarin labadaba sidaasibaa nasku ula hadlay ummadii aqoonta lahayd marka halkaa nasku waxa uu ilaahay inoogu tilmaamayaa aqoonta qofka ilaahay uu siiyey weliba diineed inay tahay ammaana la doonayo in uu qofkii guto ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha qofka mas-uulka iyo qofka madaxda iyo qofka culimada qof waliba shayga uu aqoon u leeyahay uu garanayo inuu diinayo sawaabiha sida ugu quruxda badan ee ugu macaan dadka inuu u gaarsiiyo weeye oo aan mudaahano la samaynin iyo mudaaraad iyo lafi iyo dowraan macnaha inaan jiro dheer laga soo wareegin xaqa la caddeeyo xaqu waa xaq walxaqu axaqu an yutabac walxaqu axaqu an yuqaal xaqu isagaa mudan in la raaco xaqu isagaa mudan in la caddeeyo xaqu isagaa mudan in lagu dhawaaqo ciddii doonaysaaba ka xanaaqdo marka dee labsulxaqi bilbaatil waa say nimanka yahuudda ay samayn jireen gacmahooda ay ku qori jireen tafsiir khaladay saari jireen xaqiiqaday bedeli jireen taa ka daaya sidaasay tahay oo runtii dee qofka aan xaqa haynin ayaa aada u neceb xaqa sheegidiisa iyo caddayntiisa iyo faafintiisa mar haddaanu qofku xaq haynin oo baatil wada yahay baatilkaasi noocuu doonayaba ha ahaadee aada buu karaahaysanaya xaqa iyo ehelkiisaba uu karaahaysanaya magac buu bixinaya iclaamkuu ku jihaynaya dacaayad badan buu u samaynayaa iftiraadaad iyo waxyaabo ka soo qaada waxaanu odhan dee wixii nebi maxamed laga sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam iyo rususha marka taasi karaahiyadu karaahiyeysanayo yaan loo turin baa ilaahay uu leeyahy wataktumu alxaqa waantum taclamuun waayo haddaba sidee xaqii loo cadaynaya sideedaan xaqii loo qarinayn waa in shacaa'irkan iyo cibaadooyinka usuushoodan iyo arkaantan intan oo dhanba la fuliyaa si xaqii u cabaado markaasaa ilahay ui salaada ooga sakadana bixiya la rukuuca dadka rukuucaya shacaa'irkan inay oognaadaan waa xaqii oo cad bay ka mid tahay xaqii oo cad oo muuqda in cibaadooyinkani si fiican u oogan yihin oo aan hagrasho lahayn warkacuu maca raakiciin oo sawtan salaadii ilaahay ui tukada maxaa rukuucda si gaara loogu sheegay waa meelaha u muhiimsan rukuucda iyo sujuuddu qur-aanku si gaara u calaamadayaao ka bogashadooda iyo hagaajintooda iyo waa meelaha lafdhabarta u ahay muujinaya addoonnimada waxaa muujinaya qofkii ilaahay daraadii qofkii toosnaa oo ilaahay daraaddii u foorara oo ilaahay daraaddii fooda dhulka ugu haya waa meelaha aadka usii qiimaha badan ee addoonnimada xaqiijinaya wey ee kibirka meesha ka saaraya warkacuu maca raakiciin sirta kale ku jirtaa waxay tahay bay leeyihin culamaadu tafsiir cibaadadani waxay ku fiican tahay ilaa rag baa lala hadlaya adiga arkaya jamciye inay jamca ku wanaagsantay jamcuna faral yahayba warkacuu maca raakiciin salaadaha jamc ku tukada waxaa kale oo jirta nimankaa yuhuudda la odhanaya aayaadkuna ay markaa la hadlayeen salaadooda waxa ay kala dagaalami jireen rukuucda nagadaa bay odhan jireen foorfoorarsan kari mayne marka rukuucda ay ka goosteen
ayaa ilaahay u leeyahay u soo celiya salaada rukuucdii u soo celiya waay siyaabaha xaqii loo muujinaya waxaa ka mid ah al-amru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in wanaagana la isfaro xumaantana la isu diido maca kowni shaksi namuudajiyan fii dalik iyadoo cidda arrintaa isu taagaysaana tusaale ay ku tahay adigu xaqii tusaale ku noqo dadkana ugu gurmo ilaa waad u naseexaynaysaa